waa barnaamijkeenii sheeko gaaban waxaa inoo diyaariyey injineer Aways dhegaysi wacan. haddaba qisadan cinwaankeedu wuxuu yahay adigu ha raja dhigin asaguna ha raja beelinin. waxaa jiray nin oo ummi ah aan waxba dhigin aan waxna aqrin oo niyada gashtay inuu wax barto oo niya ka go'an ayuu gaaray. go'aanuu gaaray wuxuu aaday manbac culamo ay joogto inuu wax ka barto. waxay weyddiiyeen waxa uu rabo inuu barto. waxa uu yidhi fiqigaan rabaa fiqiga inaan barto. marka waxaa loo sheegay fiqiga inuu u faradhuuban yahay uuna ku dheer yahay oona looga dambeeyo fulaan oo deggan gobolkaas. ninkii waa baxay gobolkii oo aaday wuxuu baadi goobay ninkii caalimka ahaa oo faqiiga ahaa inuu wax ka barto. haddaba wuxuu u tagay xaaladda uu kala kulmay waxay ahayd ninkii caalimka ahaa oo faqiiga ahaa asagoo waraabinaya ey oo biyo siinaya uu la kulmay. xagga gadaalna waa kaga yimid ninkii ummiga ahaa. markaasuu wuxuu ku yidhi assalaamu calaykum waraxmatullaah. asagoon loo soo jeesan ayaa loo jawaabay oo la yidhi wacalaykum asalaam waraxmatullaah. lalama hadlin. ninkii ummiga ahaa hanaas baa galay. wuxuu qalbigiisa kula sheekaystay ninkaani oo isla weyne qaba sideed wax ugu baranay sideena wax uu kuu baraa. ninkii caalimka ahaa eegii markii uu waraabiyey eegii uu dhaqaaqay ayuu u soo jebaystay oo soo dhoweeyey. markaasuu wuxuu yidhi waan dareensanahay inaanan ku soo dhowayn kolkii hore oo halkaa aad taagneed. wax kale ma aha eegaan meel dheer uu ka yimid biyuuna iigu ogaa rajadiisana waxay ahayd inuu oonbaxo. marka asagoo biyihii cabaayo oo biyihii u bilaabay ayaa adigu timid. haddiin kuu soo jeesto oo asagu aan yaso waa rajabeelaa waana dhaqaajina mana oggolay rajo dheer iyo oon asoo halkan u yimid oo soo galay goobtayda inaan rajo beeliyo. marka sidaa darteedaan kaaga aamusnaa mooyee xumaan ma ahayn xuquuq aan gudanayay. markaasuu ninkan garaawsaday wuxuu yidhi allayle ee ninka wax ku bari karo oona wax laga bara karo oo rajadaada aan ku rajo beelinaynin waa ninkan. marka qisada waxaa weeye adigu haddaad raja leedahay ama qoomiyad aad toosinayso ama si kale ay rajadaadu tahay adigu hadda ha raja dhigin. naftaada ku kalsoonaaw qofaad rajo gelisay oo raja a u waddana ha raja beelinin. dhegaysi wanaagsan.